سدودا غير عيري aan gali doonaa maanta waxaan fiirin doonaa kulan muhiim ah ayaa jira maanta Faransiiska iyo Spain kulan adag ayaa dhaxmari doona waxaan kala ku soo qaadan doonaa suuqa kala iibsiga Manchester United oo ku dhow xidiga Zexal yiraahdo oo markaas uu ciyaar nadiga Bologna iyo waxaan kala ku soo qaadan doonaa xidiga Maximin lagu magacaabo oo markaas looga yeerayo dalka Turkiga Jose Mourinho ku codsaday inuu yimaado halkaasi Simone Inzaghi oo markaas heshiis cusub u saxiixay nadiga Inter Milan iyo wararka ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ayay isku gudbin doonaa barnaamijka Garay meel fogna gaarsiiya waxaan ku hormaraynaa maanta kulan muhiim ayaa jiro kulankaasina wuxuu dhaxmari doonaa Faransiiska iyo nimanka lagu magacaabo Spain waana kulan aad u adag waana semifinalka Euro-ga oo markaas kooxaha dhamaan ay markaas u soo haray afarta ah ay markaas wada ciyaar doonaan bari waxa ciyaar doona Ingiriiska iyo maxaa la yiraahdaa qolada kale ayagana ay qoorta soo gali doonaan Holland aha maantana labadan ayaa qoorta soo gali doonto marka labada soo baxdo ayaa final tagi doonto kadibna waxa loo maleynaa in markaas finalka uu isagana isbuuca dambe uu noqon doono lagu kala bixi doono waxaa la leeyahay naadiga Real Madrid waxay ku kalsoon tahay markaas kalsooni buuxda ku qabtaa inay la soo wareegi doonto xidiga la yiraahdo Leny Yoro oo markaas Faransiiska ka ciyaaro waxaana markaas dalab ka gudbiyay naadiyo badan oo markaas kamid ah Manchester United iyo Liverpool oo ayagu aad u doonayaan laakiin xidigan wuxuu danaynayaa inuu Liverpool meeshii uu ka tagay Manchester United inuu ka tago naadiga Real Madrid xidiga badan ayaa markaas ku riyooday naadiga inay u tagaan dhulkaas maxaa la yiraahdaa Madrid waxaana la leeyahay xidigan wuxuu ku qanacsan yahay inuu tagi doono oo Kylian Mbappe inuu markaas ka garab ciyaari doono oo markaas Faransiiska ay wada joogeen marka waxa la xidigaasi waxay u badan tahay Real Madrid inkastoo dalab rasmi ah Real aysan ka gudbin haddana kooxaha dalabaha kale uga imaanaya xidig uu diidan yahay waxaana sheegay inuu san aqbali doono Philippe Inzaghi Simone Inzaghi wuxuu saxiixay heshiis markaas ogolaaday inuu saxiix 2 sano Inter Milan uu kordhiyo qandaraaska walow markaas Simone Inzaghi uu yahay ninka u qaaday Realka xilli ciyaareedkii hadda dhamaaday marka wili waxa la leeyahay qandaraas cusub oo soo bandhigayaan naadiga Inter Milan inuu sii joogo doono ayayna u badan tahay Manchester United waxay qarb u saaran tahay inay la wareegto xidiga lagu magacaabo Jose Zexal oo markaas Hollandeeska u dhashay naadiga Bologna u ciyaaro isagoo markaas ay qadka telefoonkooda hadleen Erik ten Hag inuu markaas tagi doono naadiga Manchester United ee garoonka Old Trafford oo ka tagi doono isla isbuucyada hadda soo socdo maadaama xidiga heshiiska shakhsiga ay la gaareen naadiga Bologna loo ogolaaday 40 milyan oo xidigan ku dalbanaysay lana qanciyay wakiilka markaas oo asagu dalbanay 14 milyan oo euro ugu dambeyntii la isku afgartay in lacagta lacag ka yar oo wakiilku qaato xidigana uu soo wareego dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Manchester waxaa kaloo jirto in xidiga lagu magacaabo Maximin Zexal oo markaas u ciyaari jiray naadiga Newcastle in markaas laga codsaday inuu yimaado dalka iyo maxaa la yiraahdaa Turkiga Jose Mourinho ayaana ka codsaday in xidigani maadaama hadda uu Carabta ku sugan yahay inuu ka soo wareego dhanka Carabta uu yimaado Fenerbahce maadaama Jose Mourinho Fenerbahce uu coach u yahay wuxuu ka codsaday xidigaasi inuu yimaado dhanka inkastoo asaga xidigani mishaarka oo xagga mishaarka uu fiican yahay dhanka iyo maxaa la yiraahdaa Carabta oo Carabta mishaar fiican oo waaliya ay siiyaan marka waxyaabo badan oo suuqa ka soo korreeyna way jiraan Real Madrid markaas waxa la leeyahay idan waxay jooginaysaa xidig kale oo aad u fara badan Barcelona waxay ballanqaad u sameeyay leeyahay taageerayaasha waxay sheegeen in ayaguna xidig soo iibsan doonaan oo naadiga isbedel weyn lagu sameyn doono Alvaro Morata ayaa waxa sheegay inuu markaas ka fariisanay ciyaaraha 2024 markii uu dhamaado Euro-ga wixii ka dambeeyay inuu si ahaan doonin markaas kabtanka xulka markaas la yiraahdo Spain wuxuuna sheegay inuu ciyaaraha gabaanba ka fariisan doono waxaana laga sii fikirayaa ninka kabtanka loo magacaabi doono maadaama Alvaro Morata uu yahay hadda ninka kabtanka u ciyaaro Manchester United waxa la leeyahay waxay kula biirtay Arsenal in markaas ay kula tartanto xidig muhiim ah oo markaas ka ciyaaro oo markaas dhanka ay Holland waxayna leeyihiin xidigaasi anaga muhiim ayuu noo yahay inkastoo Arsenal ay xidigan diyaar u tahay in markaas si ka fola la soo wareegto waana xidig Ajax weerarka ugu ciyaaro waxaana lagu magacaabo Brian Brobly oo markaas si fiican ugu ciyaaro waxa la yiraahdaa defense gaanaska suuqa ay si weyn ugu jiraan inay weeraraan helaan halka Manchester United leeyahay iyadu waxay ku dhowdahay Zexal hadii lacag ay weyso Zexal in waxay u dhigi doonaan xidigaasi Brobly la yiraahdo oo markaas ka ciyaaro dalka Holland waxaa jirto in isbedel weyn ninkii lagu magacaabo Paulinho oo asagana heshiis toos ah u la gaaray naadiga Bayern Munich laga yaabo inuu u dhaqaaqo mar dhow kadib markii Fulham iyo xidiga markaas isla ogolaadeen inuu xidigana tagi doono dhanka ay maxaa la yiraahdaa Bayern Munich waxaa kaloo jirta in Manchester United heshiiska markaas ay ka seexanayso Ruud van Nistelrooy oo markaas noqon doona ku-xigeenada tababarka Erik ten Hag tababarayaasha Erik ten Hag ku xiga ayuu noqon doona midkood waxaana la sheegay in xidigani hore Manchester United Ruud van Nistelrooy oo heshiis 2 sano u saxiixayo naadiga Manchester United oo sii ahaan doono inta markaas Erik ten Hag uu joogo inuu la sii shaqeyn doono oo markaas uu inaan 2 sano inuu sii shaqeyn doono hadii uu bagana in markaas uu sii joogo hadii kalena sanad dooq oo markaas meesha ku jiro la sii dhameystiri doono hadii uu suuragal weyso markaas naadiga ku qancana oo iskaga tagi doono
waxaa la sheegayaa in markaasi lacagta carabta ay markaasi dhowr jab ku noqon doonto Manchester United xilli oo markaasi Sacuudiga ku sii jeeda Bruno Fernandes oo markaasi ay codsanayaan naadiyada Sacuudiga. Manchester United laakiin waxay leedahay waxay u fasaxday xidigani inuu naadigi oo rabo Sacuudiga inuu la hadli karo, lacagtana Manchester markaas kadib ay sheegan doonto xidig ay ku dalban doonto. Michael Olise wuxuu sheegay inuu markaasi ku qanacsan yahay inuu Bayern Munich ku biiray halkii uu kaga biiri lahaa naadiyada Premier League, waxaana sheegay in naadigiisa inuu markaasi Crystal Palace oo xushmad u hayo halkii uu markaas Ingiriiska ka soo weerari lahaa naadigiisa inuu ka doorbiday inuu wadanka banaanka uga baxo. Bayern Munich wuxuu sheegay inay tahay naadi weyn oo mar walba Champions League ka ciyaarto sababtoo halkaas u aadana inay tahay arrintaas muhiimka. wuxuu kale sheegay in xidiga badan oo Premier League ka tagay kooxa isla kooxa kale Premier League tagayna inay fashilmeen, sidaas daraadeed asagoo ku qancay inuu markaas halkaas iska sii joogo. Arki doonaa Thiago Alcantara ayaa wuxuu sheegay inuu ka fariisanayo kubadda cagta dhawaan, iyadoo markaas leeyahay xidigani waxaa kubadda uu sii ciyaari karaa maadaama da'diisa aysan aad u weynayn oo 31 sano jir yahay, haddana waxaa leeyahay wuu ka fariisan karaa ciyaaraha. waxaa leeyahay xidiga badan waxaa jiro da'da ayagoon 30 gaarin ka fariistay, waxaana kamid ah Jose Lingard oo asagoo 9 sano jir ah ka fariistay ciyaaraha markaasi kubadda cagta, markaasna xirfado kale u wareegay. marka ciyaartooyda qaar ayaa waxaa lagu leeyahay ayagoo waqti horeba la gaarin ay qaranka iyo naadiyadaba ka sii fariistaan oo markaasi ay ka wareegaan, halka ciyaartooyda qaar markaasi ayagoo marka 40 jiro ay kubadda cagta ciyaarayaan ama garoomada ay ku jiraan. hadda Rafael Varane ninkii lahaa isagana wuxuu wareegaa leeyahay dhanka iyo Como oo Fabregas ayaa iskale naadigan, waxaana ka ciyaartaa dhanka iyo horyaalka Talyaaniga qaybtiisa labaad. waxaana warar ku sheegayaan in xidiga halkaas u saxiixi doono oo uu sii ciyaari doono ilaa 2 xil ciyaareed oo heshiis 2 sano ayaa loo soo bandhigay. dadku waxay leeyihiin maxaa Manchester iskaga jooga waa hadaba Como tagayo ninkan oo naadigaas aad ku yar oo hadda ay doonayaan inuu sii ciyaaro, wuxuu markaas Manchester United iskaga sii saxiixi waayay 1 sano ama 2 sano kale si uu sii joogo. laakiin tababar Erik ten Hag waxaa la sheegay inuu isbedel rabay ciyaartooyda da'da 30 sano ka weyn inuu iska joojiyo ayuu ku fikiray, inkastoo hadda Mahrez Maguire iyo Anthony iyo rag kale fara badan ay joogaan oo asagu markaas teamku aan ku qanacsanayn in oo badan tahay in Erik ten Hag uu ka cirin doono naadiga. Arsenal xidiga badan ay soo doonaysaa oo markaas muhiim ah, xidigahaasina waxaa kamid ah leeyahay Alexander Isak oo weli Need ay ku hayaan, waxaa kaloo kamid ah leeyahay Solanke oo markaas asagana Premier League ka ciyaaro naadiga Bournemouth iyo rag kale fara badan ay markaas Arsenal doonaysaa qadkeeda dhex ku xoojiso. Euro leeyahay Euro kadib ay Arsenal saxiixdeeda bilaaban doonaan, naadiga Chelsea ayadana dhowr ciyaartooy ay la wareegtay laakiin xidiga da'yar ay u badan yihiin oo 17 sano jir 18 sano jir ah, walow xidigaas xidiga mustaqbal ay yihiin laakiin xil ciyaareed soo socda xidiga lagu xamaalan karo oo si toos ah marka suuqa wax uu qaban karo ma ahayn sida ay u badan tahay. Kepa wuxuu sheegay inuu dalab weyn uu ka helay markaas wadamada maxaa la yiraahdaa Faransiiska iyo Spain uuna ka tagi doono Manchester naadiga Chelsea, waxaana laga yaabaa inay markaas naadiga iska iibiso. xidigan waa goalkeeper ugu qaalisan 73 milyan ay naadiga Chelsea ka soo bixisay, markay soo iibsanayaan dadku way la yaabayeen, waxay dhahayn war xidigan saas qaaliga u ah maxay tahay. bal waxaa lagu ciyaaraha kasoo kordha halkan ku soo gudbin doonaa barnaamij share gareeya Mel Fogan Garcia kulanka caawana indhaha ku hayo oo waxa way kulan muhiim ah oo markaasi laba wadan oo aad markaasi muhiim u ah markaasi adduunka laga yaqaan ayaa ciyaarayo. ciyaartan waxay soo gali doontaa 4 saac Spain iyo Faransiiska. saadaashu waa dhanka commentiga kooxda aad isleedahay ama xulka isleedahay uu badin doonaa ku soo qor dhanka commentiga. saadaashaadana waa noo muhiim, dhanka subscribe iyo like iyo share-tana waa noo muhiim ayagana dhankiina ayaa markaasi ka sugeynaa. maasantii barnaamij share gareeya Mel Fogan Garcia Goon Sports inta barnaamijka la kulmi doona fi amaan Allah.